munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo maamulka Soomaaliya Central State ee xarunteedu tahay magaalada Dhuusamareeb ee magaalada madaxda gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Caabuda Waqooyi gobolka Galgaduud iyadoo ay soo qaban qaabiyeen qaybaha kala gedisan ee bulshada isla markaasina ay sheegeen inay taageersan yihiin maamulka Soomaaliya Central State waxaana halkaas ka hadlay ugu horeyn qaybihii ka soo qayb galay munaasabadan lagu taageerayo maamulka Soomaaliya Central State waxaana kamid ah hadaladoodii waxaana leenahay maalin u baa la idin xisaabtami doonaa ummadda Soomaaliyeed xaq waxay u leedahay in afkaarteeda la dhageysto waxaad ogtihiin 2016 waxa la rabay qof walba Soomaaliya codkiisa inuu dhiibto oo qofka uu rabo uu doorto oo laga badbaado nin urura oo urur u shaqeynaya Soomaali u shaqeynay oo laga badbaado nin dadka dhiigiisa iyo dhacaankiisa banaysanaya oo la yiraahdo yaa Soomaali dawladii Maxamed Siyaad Barre dhacsan tahay 25 ka sartay oo caalamka ay ka qaateen sharaf weyn ayaa xukum aan ka aragnay inta kale nasiibka yada iyo dadnimada yada iyo odayaasha yada ayaan ku noolay kuna dhaqnay gacan bino aadan oo kale oo soo dhaxgashay hadday tahay dawladda Soomaaliya dhaqan ka maqlaa hadday tahay dawladda Itoobiya dhaqan oo ciidankii ay ka soo horjeedeen qalabkoodii iyo naftoodiiba ku wareejiyo yiraahdo guryahan ay gubi meeyeen intaas horta aragti iyo aqliba noogu filan annagu ma aanan yeelin xabadii baan soo qaadanay qorigii baan soo qaadanay lacagtii baan soo qaadanay guryaheennii baan ku gubnay dadkeennina waa ku leeyahay waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeenayaa dadkii ku dhintay magaalada Caawud waa nooc kasta ha noqdo oo khaladka ku dhintay ilaahay ha u naxariisto meel kasta waa ku dhintay amiin dhammaantood ilaahay ha u naxariisto khalad Cabdi Qaliif Galgaduud Media waqooyi gobolka Galgaduud magaalada Caabud